kalfadhigii toddobaad ee golaha shanaad ee baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si rasmi ah uga furmay xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga waxaana kalfadhigani ka soo qayb galay afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna madaxa arrimaha xisbiga ee xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo xildhibaanada deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horreyn markii la hubiyay in kooramka kalfadhigu buuxo ayaa waxa si rasmi ah u furay afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq isagoona golaha soo hordhigay ajendayaal ay kamid ahaayeen ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee miisaaniyadka 2010 ansixinta miisaaniyadda 2011 ansixinta warbixinta baarlamaanka ansixinta warbixinta maxkamadda guud iyo ansixinta warbixinta hanti dhowrka guud ajendagu wuxuu ahaa warbixinta kulli sanadeed baarlamaanka waxqabadkeena waan madalabaad warbixinta xukuumadda oo sanad 2010 waxqabadkeena ajenda saddexaad budget ansixinta way budget waxaan ku rahaa sanadeed 2011 tan kale maxkamad guud report antana kana waa sanadeed shan andana ka dhiganta inteena taageersan dejiya intii diidan intii kaamustay warmasantii intaasi kadib ayaa waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar oo sheegay warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyaedka 2010 ay ku sargo'an tahay afulinta qorshayaasha horumarineed nabadgelyo kaabayaasha dhaqaalaha shaqo abuurka dhismaha dhaqaalaha kobcinta wax soo saarka beeraha taabagelinta dhanka isku socodka jidadka isagoona sheegay in xildhibaanadu ay ka doodaan warbixintani ajendaha koobaad anoo ka duulaya soo dhigida waxqabadkii xukuumadda waxa weeyaan sanad miisaaniyadka 2010 ayaa soo dhigay dilaylo oo waxa weeyaan waxqabadkii laga qabtay dhanka horumarka gaar ahaan waxa weeyaan anoo ka duulayna qorshihii aan dhiganay iyo yoolkii iyo waxa weeyaan ujeedooyinkii aan lahayn gaar ahaan xilligii aan soo dhaafnay sanadkan fulintii sidee ahayd maxaa noo qabsoomay maxaan qabsoomin kuwaan qabsoomin maxay u qabsoomi waayeen sababtu maxay tahay caqabadihii dhibaatooyinkii lala kulmay sidii lagaga baxay ama xalalkii laga gaaray arrimaha noocaas oo dhammaan maxaa ku rahay soo dhigayna intaasi kadib madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa ka hadlay guud ahaan isbedelada horumarineed ee ka socda dalkeena waxaana madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu sheegay in qorshaha cusub ee uu wado ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ee ku salaysan iscafinta iyo jacaylka ay ka deegaan ahaan ka dhaqan gelinayaan dhankooda maanta waxa weeyaan waxay ku beegan tahay maalintii waxa weeyaan boqolaad ee Dr. Abiy وحرك هيويان رئيسنا دالك دكتور أبي أحمد بقولك عشاء وشوي وزاروه حقبت كي وقبتي إنك واحد نجا عندنا يقابك أي صادق حويان رئيسنا دالك دكتور أبي أحمد وشها وحويان صادق كدون وحويان نظام كي هراء مقاب كي هراء لو شقيني وحالا كجد سنويان ورنتي نتيجوين كان أنا قد قرشيس كوبادة إسعافيس إن ليس عفيو قرشها كوباد وحوي وصار جاي وحويان وحوي نكسر والله ساقبتي سدا سكرنا وحبا محاكر على خلدي هل ليس عفيو وحويان هل يسكت القاطع شعيل هلا كانوا وحي هراء دبكي هراء أنا عفينا بيش السبع فرنا قرشيس كوبادة وزارة هل كان يسوي كدولية يعني النع اسنعيب وحويان قومية إن نعضو شخصين وشخص نوعه إن دباتوي نوع على سمعيه وحويان حرمت لهم جاريه حضرتها قرشها الوزراء وحويان أنا أمسنها إنه كين يهرمر نبتجريه مامور الصبان والدقدقة ولي بنا والدقدقة ما كانت إجنو وعن قاعدة شديدة كونفليكس إيوه وناقة كشرة أنا وكدولينا كديجانا هان إسبدل كأورزاره وحوي وضع شركي كودي دفرنته شلق الله وحانس كلا قادناي إنه يهاي مد وحوق عنا يا ومدة دلك يكديجان كما جارهان استمر كان دان كان نجوحنا نجاء دين فلنتيز قرشها بقول كيا بقول إياه هكذا شو كشرين إن السيدة تهاي أنا فلولينه
ayaan guddi fulaan isula qaadanay haddaan soo qaato haddaba annagoo waxa weeyaan ka duulayna taa maxaan qabanay weeyaan waxaan qabanay kow is-cafiska in waxa weeyaan wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay dhanka horumarka nabadgelyada oo mucaarad iyo muxaafad nabadiid iyo nabadoonba uu markhaati ka yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya wixii lasoo qabtay ee wanaagsanaa ee horumar kale ee waxa weeyaan kobaca dhaqaalaha leh ee nabadgelyada leh ee waxa weeyaan kufaanida Itoobiyaanimada leh ee waxa weeyaan isjacayl kale ee soo qabanay isagoo siisa tahay haddana marka wax la qabanayo shaqo khalad la'aan lama qabto waxa weeyaan waxaan sameynaa wixii wanaagsanaa ee aan soo qabanay waan sii wadaynaa khaladkii aan galnay ee inaga dhacay waxa weeyaan waan saxaynaa cidii anaga nagu khaldantana waan cafiyeynaa taas weeyaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa sidoo kale sheegay in go'aankii baarlamaanka dalkeenu uu nalaf kaga saaray liiska argagixisada ka deegaan ahaan ay dhaweynayaan xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiyana ay cafisay dhamaanba maxaabiistii oo nalaf ku eedeysna maantana aysan jirin cid u xidhan nalaf madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu nalaf ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qorshaha cafiska iyo jacaylka ee guud ahaanba ururada kale ee dalku ay ka faa'iideysteen qorshaha rasuulada ee ku salaysan wanaaga ee ku salaysan is-cafiska ee ku salaysan waxa weeyaan wada noolaanshaha is-jacaylka qoomiyadaha iyo dhammaan waxa weeyaan shacabka Itoobiya annagoo taa ka duulaynaa waxaan isla qaadanay kow xabsiga dadka ku xidhan in aan cafino oo aan waxa maxaabiista cafino yaan isla qaadanay waa qodob maxaabiisti marka saddex qaybood baa loo kala dambi culus dambi fudud iyo ururo maxaan ku rahaayeen nabadiida ururka waxa weeye maxaan ku rahaayeen oo ina foo kale xiran maxaabiistii baan isla qaadnay totally waxaan anagoo ka duulaynaa go'aankii ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanku dalka Itoobiya oo ansixiyay uu kaga saaray waxa weeyaan ururka oo laf kaga saaray argagixisnimada anagoo ka waxa weeyaan siday tahay u qaadanayna iyagana ugu baaqayna in wanaaga loo muujiyo ay ka faa'iideystaan oo nabadda ku soo dhawaadaan anagoo iyagana ugu baaqayna annaguna ka si aan u xaqiijinay inaan qaadanay dhammaan dadkii ku xidhnaa ururka oo ay laf ku xidhnaa oo dhan oo dan ka qaadnay waana sii deynay waana cadeynay saacadan aan idila hadlayo hal nin oo nalaf ahaan u xidhan ma jiro madaxweyne Cabdi Maxamed madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qorsheynayso in dhammaanba jeelasha deegaanka la xidho miisaaniyadii ku baxaysayna loo isticmaalo dhanka horumarka isla mar ahaantaana lagaga shaqeeyo kabayaasha horumarineed waxa kale oo aan qorshaha ku dirsanay fulinteedana aan hirgelin doonaa haddii la yiraahdo in xabsiyada aanu bedelo xarumo horumarineed tusaale ahaan xabsiga oo kale waxba iskuul loo bedelo masaajid loo bedelo xara caafimaad loo bedelo waxa kale oo isla qaadanay miisaaniyada maxaabiista nagaga baxaysay qofka saddexdiisa cunto iyo dawadiisa iyo kharashka ku baxaya leerka biyaha kuwaas inaan u adeegsano dhanka horumarka oo aan u soo iibsano waxa weeye ku soo iibsano dawo guriyada ku dhisano oo dhanka horumarka isagu iskuul lagu dhiso maxaabiista lacagta ku baxaysa taana maxaan ku raayay waan isla qaadanay waana maxaan ku raayay oo waxaan fulinayna weeyaan marka waxaan cadeynaynaa in nidaamkan uu waxa weeyaan cusub ee wasaaruhu keenay qorshihiisa inuu yahay mid أنا مستني إني من ذلك نافعي ديان كان نافعي. مدحوينها دولة ديان كسوملة إثيوبيا يا تلمامي إن قول وين أي شعب كديان كسوملة إثيوبيا هي كان ذلك إن إثيوبيا بوتهاي سو صارستا شرال كديان كهذا تكوي هاي كاسو كدر سمايا دقالها ذلك إن سيد رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد وشيغي. وحقلت كنا وحكم ذا إن الكوجو ليسني حكومتنا أنت شفتي أي كوجو ليستو إلى هنا سواء وقدروا إن وحوي شدالكي للها شدالكي للها وحويا بقرصنا شكلها إن كقولي سنة ما أنتنا وحويا بالله إن وحويا لقلو ودخل الجوري وبالله إنه كسر قلو
maaha keliya waa la qoday dakhligii u horreeyey inuu soo xaroodaa bilaabatay in la iibiyo oo ganacsi galaa bilaabatay waa maxaan ku raay waa la soo saar keliyaba taasna waxaan dhihi karaa xukuumado badan baa dalka ka soo jiray deegaankeenana xukuumado badan baa isku soo bedelay inuu ilaahay xukuumadan ka dhigay tii waxa weeyaan uu sabab uga dhigay inay shidaalka bilowgo ilaa soo saarkeedana bilowgeedii ilaa xaraka jarkeediina taana waxaan leeyahay waa haybad ilaahay la siiyo ilaahay lagu magacaabay taana waa haybad ilaahay la siiyo waa wanaag ilaahay la siiyo weeyaan haddaan soo qaato 2013 ayaa heshiiska la galay bishii November ayaa la galay kadib markii heshiiska la galay 2014 ayay yimaadeen July 14 ayay yimaadeen kanu oo ku wareejinay goobaha ka baaritaanka sameeyay waxay bilaabeen ceelkii ugu horeysay in waxa weeye dhulka la duleeliyo ama qodistii riiga lagu bilaabo waxay ahayd 2016 ayay ahayd marka kaamarkii la gaaray waxaa lagu guuleystay ama xariga laga jaray 16 June 2018 sane waxa weeye 2010 tirsigeeda ay ahayd waa markii la soo saaray ee la isticmaalay shidaalka weeyaan ee aan jeerigaanada ku soo qaadanay waxa weeye maanta warshadaha dalka ay ku shaqeynayaan saacadan ay ku shaqeynayaan warshadaha dalka marka taasna waxa leeyahay wax ilaahay mahadiyo weeyaan madaxweyne cabdi maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa cadeeyay inay dhamaatay xilligii been iska sheegidda iyo propagandada cid fadhiidana aan loo joojin doonin iscafiska iyo jacaylkuna uu sii socon doono midnimada shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiyana ay sii adkaan doonto qorshaha wasaaraha ee cusub sidee u aragnaa waxaan u aragnaa 100% inuu yahay mid dalkana darwa shacabkana darwa iyo aragnaa tamarka hore waan u sheegnay xafaar isagu wixiisu waa xafaar siyaasad kale ma yeelanayo oo inuu xaasaan ahayn unitiga iyo isku duubnidan ka dhaxeeya waxa weeyaan kor ilaa hoos xukuumadeena waxay ku noqotay dhibaato ayay ku noqotay meel ay ka soo galaan markii waayay inay barowgaano iyo hadal ay sheegaan bay noqotay taas weeye nidaamkan inuu shaqeeyo oo hore u shaqeeyo ayaa loo baahan yahay shacabka dartii waxa weeyaan masaakiinta dartii biyaha heleen kuwa kale inay helaan inuu hore ugu sii socdo ayaa maxaan ku laga maarmaan taabaka gacmo isku duubni baa ku wada qabtaan isku duubni ayaa wax ku qabanaynaa oo aan qorsheena ku dhaqaajinaynaa kalfadhigani toddobaad ee golaha shanaad ee baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sii socon doona maalmaha soo socda.